dhegeystayaal VOA-da waxaa idiin soo gudbinaysaa waraysiga dhammaystiran oo aynu la yeelanay ku-xigeenkii hore ee madaxa ururka al-shabaab Mukhtaar Roobo Cali Abuumansuur oo haatan xabsi guri ugu jira dowladda federaalk ee Soomaaliya. waxa uu isagoo ku sugan magaalada Muqdisho qadka taleefanka ugu waramay Haaruun Macruuf. su-aasha ugu horeysa rabay inaan ku weydiiyo bal waxa weeyaan marka hore maxaa kugu kalifay xilligan inaad nala soo xiriirto oo aad go'aansato inaad nala hadasho? walaal marka hore waan ku mahadcelinayaa waraysigaas inaad iga qaado adiga iyo VOA-daba. waxaan kaloon u mahadcelinayaa dadkii ka dhiidhiyey markii aniga la isoo afduubay oo amisom isoo afduubeen dal iyo dibadba, Soomaali iyo kayrba, hataa qodobada beesha caalamka haysom oo kale shaqadiisuu ku waayay. runtii isagana dadkaan u mahadcelinayo ku jiraa. waa mahadsantihiin baan leeyahay. su-aasha haddaan usoo laabto anoo hoogaa hirgebsan oo yar xanuunsanayo waxaa igu kalifay waxa weeyaan walaal niman baa isoo afduubtay 2018 bishii 12 ayaa la isoo afduubtay. ilaa iyo hadda ayaan u afduubanahay. aan telefoon la ii ogolayn oo xuquuqdeydii asaasiga ahayd la ii ogolayn. wax kastoo bani aadan ulahaa aan la ii ogolayn. marka taasaa kaliftay intaan noolahay oon wax dhihi karoon fursadaan helo in aan sheego waxa meesha ka jiro, xaaladda aan ku suganahay iyo cidda sababtay xaaladaas. waaye bal waxaad wax nooga sheegtaa marka hore amnigaaga iyo noloshaadu waa sidee, ma sugan yihiin? amnigu maraaxil buu soo maray. markii hore la isoo afduubay waxa weeyaan waxaa la keenay Muqdisho 6 bilood xafiiska hay'adda nabad sugidda ayaa lagu hayay. Fahad Yaasiin baa taliya ka ahaa. 6 bilood marxalay ahayd. muddo kale iyadana guri kale la geeyay oo ciidan hore oo ila joogay waxay ahaayeen ciidanka waa la dhaho waa shaamid ahoo nin kale uu wato oo 3 magaalo laga soo kala qaaday Gaalkacyo iyo Cadaadis iyo Dhuusamareeb baa muddo i hayay. niman iska maleeshiya fawdaawiyiin baa ku badnaa. waa kuwa qorkayda isku xabadeeyay oo qorkayda nin lagu dilay bedelay oo guri kale i keeneen. isla warantiiba la igu soo wareejiyey. ammaanka iyo tan noloshaba ma ku dhihi karo way sugan yihiin, kuma dhihi karo oo ma ku dhihi karo. waxaan rabaa waraysigani waa waraysigii ugu horreeyay aad bixiso tan iyo intii aad ka soo baxday shabaab, tan iyo intii lagu xiray muddo aad u dheer weeyaan. waxaan waxyar rabaa inaad bal dib u celiso dadweynaha maalintii lagu soo xiray iyo sidii lagu soo xiray iyo ciddii ku soo xirtay. walaal maalinkii la soo xiray waxay ahayd 2018 bishii 12 13 oo khamiis ay tahay ay ahayd. ka hor intaan la isoo xirin ninka joogay amisom secretary u joogo Etoobiyaanka ahaa ayaa wuxuu sameeyay dad buu isoo diray. kadib waa ii hanjiray waa ku xirayaa. wuxuu igu yiri anigu qolada Muqdisho farmaajo waxay dhahaan baan yeeli doonaa ogow. waxaan ku iri dadna wayna la joogeen oo markhaati amaanta. waxaan ku iri sidaa oo kale maanday kuma joogo wadanka iman xiri kartid. murashaxdaan ahay si sharciya meesha ku joogo. kadib maalinkii la shirqoolayay waxaa la shaqeeyay iyaga Cabdulqaadir Shariif Sheekhuna ninka la dhaho baarlamaanka markaa joogay. isagaa i wacay. murashaxiinta oo dhan baa la wacay. imow buu yiri waan irid. baabuurkayga ugu dambeeyey iridii markay baabuurtii wada galeen kaygii ganjeelkaa lagu xiray si uuna u gelin. ganjeelkii baa qaba la siiyey banaankaa lagu reebay. kadibna Etoobiyaanka igu soo qamaamay. ciidan labaska amisom xiran bay ahaayeen. kadibna iyagaasaas igu afduubay. jibdil bay igu sameeyeen. hantida iga dhaceen. dukumeenti bay iga dhaceen. 3 saacadood bay hayeen. 3 saac kadib adigu 5 saac iyo hoogaa bay ahayd. markii 8 saac iyo hoogaa markay tahay ayaa Saadiq Joon baa yimid. hortiisana ciidankii Haramcad oo weerarkeeda xooggiisa loo keenay baa joogay. waa la murmay oo Addis Ababa loo qaadi iyo Muqdisho loo qaadi bay ku murmeen korkayga. waxaa markii dambe sara martay Muqdisho in la isoo qaado. marka dadka isoo xiray waa amisom gooni ahaan Ethiopia
marka maxaa lagu soo xiray aan kaa dhaxgalo horta intaana sababta u gudbin ka tartamin intaad sababta u gudbin koonfur galbeed in la afduubo doorashadeeda waxaa la ii soo xiray 77 cod oo koonfur galbeed ka iman doonto in sida la rabo loogu tasarrufo kadibna lagu guuleysto oo lagu soo laabto ayaa la ii xiray meesha dad murashaxiin lagu soo xiray meel haddii doorasho lagu aamini karaba ma ahan marka meesha meel doorasho ay ka suurooreyso ma ahan waa meel waaye iisug marka wax yar iisug marka uu ku haysto weeyaan oo nimankaan uu haya waaye wax yar iisug marka waxaad ku doodaysaa adiga in sababta lagu soo xiraahayda in laga joojiyo tartanka maxaan ku idhaahdaa sida aad sheegtayna codadka ka soo baxaya koonfur galbeed dhinac lagu hubsado eedihii waxaan rabay wax yar inaan ku laabtay yaa doonaya in Addis Ababa lagu geeyo ma Etoobiyaanka mise Soomaalida Etoobiyaanka generaalka meesha joogay wuxuu rabay in la iqaado Addis Ababa magaalada oo dhan xabad bay noqotay iyaga naftooda way yaabanaayeen argagax aad u badan baa ka muuqday marka waxay rabeen inay iyagu gacanta ugu hayaan xagga iyo wada marka kabacdi go'aankii wuxuu noqday xamar in lagu keeno bal halka ka bilow keenistii xamar iyo maxaan ku idhaahdaa haddii su'aale lagu weydiiyey haddii shuruuda lagu soo hordhigay wax laga codsaday haddii jiraan saadiq joom bay soo dhiibeen saadiq muqdisho uu keenay guri madaxtooye agteeda ku yaalo telefoonu la soo baxay wuxuu u yiri magaaladii xabad baa ka socoto baydhabo waa kana meeshaan aad joogtaa dadkii kacdoon baa jira adaa waxaan kiciyey adaana damin kara dadka la hadalo xabada joojiya dhahu igu yiri waa gartay marka waxaan ku iri xabada idinka bilaabay jooji anigu xabad ma bilaabin magaalada ammaan bay ahayd intaadan iman adaa qasay idna la hadli maayaan ku iri halkee ka hadal buu ku dhahay ma idaacadda dawladda mise waraysi bixi buu idaacad la hadal telefoon buu ila soo baxay hadal oo dadka xabada joojiya oo waa nabad qabaa ka waaya dhahu igu yiri ayaan ku iri ma iga suulaysid xabadana magaalada nabadeeda adaa bilaabaa ku yiri xabada dawladda Soomaaliya markay ku soo xirtay oo lagu keenay xamar mas'uuliyiin ama ha aadaan kuwa dawladda dhexe federaalka rayidka ama laamaha amniga intay ku soo hor fadhiisteen ama xeer ilaaliye ma ku yiri sababtaana ku soo xirnay eedaan kugu soo ogeynaa waxaanan kugu haysanaa hadii horta xeer ilaaliyuhu intuusan xabsi igu iman soo qaanuunku ma ahaan lahayn marka horeba in warqad la isoo jarto anigu si sharci ah baan u tartamay shuruudo ayaa murashaxa loo soo dhejiyey koonfur galbeed shuruudihii baan buuxiyey shahaadaan qaatay si sharci ah oo toosan baan u socday cidna wax ma aanan yeelin horta heer ilaalin iyo haddii lasoo maraayo sharci markaasoo ma ahayn marka xabsiga kadib aa lasoo mari laha marka meeshii ugu horreysay lagu geeyey marka wax yar si kooban waad uga hadashay su-aashii ugu horreysay halkee lagu geeyey oo lagugu xiray go-aankaas yaa bixi xafiiska Fahad Yaasiin baa lagu xiray qol ka mid ah bal marka aan hay-adaas tagay qol sanbalosho taliya u deganaa qol ku degan baa lagu xiray 9 biloodna meeshaasaan ku xirnaa waa gartay inta lagu haynayo iyo maxaan ku idhaahdaa intaad meesha joogto wax xuquuqad leedahay ama aanad lahayn eeda lagu haysto hadday jiraan haba yaraatee cid kuu sharaxday ma jiraan ma jirin fariimo qaab daran oo isoo gaarayay way jiraan ninkan ama sidanaan u haynaynaa ama wadan kale in loo tafxiilo ogolaado iyo waxaas waa jireen taasna waxaan ku iri marba ugaaskaygu ii yimid ugaas waxaan ku iri anigu qabiilna uma xirni qadiyadaas guudaan u xiranahay waxba hadda la idameynan maayo tuug maahi meel baad u safraysaan waxaan ku iri anigu wadankaanaan leeyahay kanaan ku dhashay una dhashay kuna dhiman doonaa insha allahu meel kale uma socdaan ku iri marka ugaasku markaas fariin ah miyuu kuu keenay haddaad rabto wadan dibadda lagu geynayaa saas miyaad ka dareentay waxaasaan la ogol yahay waa iyiri anaaba u sheego ku iri ma ogoli weliba waxaan ku iri wadanka kasta wadankuu yahay hadduu qolkan soo dhex galo waxaan ku iri waa ka guuraya dawladdu si toosa ma kuu tiri wadan kale ma ku geynaa may ku dheheen iyagu way dhuumanayeen oo si uun qolo dalaala bay isticmaalayeen hadee wuxuu qofka hadduu gardaran yahay kumaba hor iman kare waa dhuumanayeen toosba iguma ay imaan
way waxaan rabaa wax yar dib inaan kuu celiyo markii shabaabka aad ka soo baxaysay 2017 bishii August dagaal baa dabcadeeda dhexmaray kadibna waxaad isku dhiibtay mas'uuliyiinta dawladda ee Xudur kabacdina xamar baa lagu keenay muddada hore intaan lagu qaban ee aanad baydhabo ku laaban si aad u tartanto heshiis lagula galay miyuu jiray sababtoo ah xilligaas nin xor aad ahayd meeshuu doona mara dibadda wadankaad uga baxday waad soo laabatay baayo bakool baad ku laabatay waad tartantay xafladaad qabatay heshiis lagula galay miyuu jiray markaas aad ka soo baxday shabaab bishii August 2017 adigu warkaas waa dheer yahay hadda ma wada geli karo waxbaan ku heshiinay wax kasta oo aan ku heshiinay way ka baxeen niman macruuf ku ah way ballanka baxyadu oo runtii aad macruuf ugu ah halkaan baydhaba aaday macnaan dhuuman si cad baan meeshaan uga safray nin la yidhaahdo Jaliil Xuseen baa joogay baabuurkiisa lagu qaado ee dalka lagu geeyey meeshaan tegay kadib markaan tegay ay qiimeeyeen sida la ii soo dhaweeyey iyo qaabka bahasha ay u socoto ayay warqad iga soo daba tuureen oo ay leeyihiin ma tartami karo warqadu ma ahayn warqad dastuur haysata wiilkii amniga markaas joogay baa qoray warqad dastuur iyo sharci iyo wax ay ku fadhiyaan ma ahayn anigoo koonfur galbeed baan ka tartamayay shuruuday dhigatay waan buufiyey waxaan uga baahnaa ma jirin intaas weeya waa gartay waxaan rabay inaan ku weydiiyo hadda xilli doorashaa lagu jira doorashadii heer qaran xildhibaanadii la dooranay aqalkii sare waa la doortay kuwii aqalka hoose waa la dooran rabaa dhawaan seed u aragtaa ma la socotaa horta wararka dibadda ee siyaasadda haddaad la socoto seed u aragtaa doorashada hadda iyo say ku socoto Soomaaliya 4 sano oo igu dhacday gashay runtii awoodii iyo daaqadii iyo dhaqaalihii iyo maskaxdii lagu difaaci lahaaba gudaheeda lagu soo celiyey hebel weerar iyo hebel soo xir iyo hebel qabo iyo hebel iyo tartamin iyo guudkan kula tubanayo waa ku istaagnay iyo waxaasay ka bixi waayeen qoladii meesha qabsatay anigoo horta guud ahaan Soomaalida waxaan kula talinayaa inay doorashadooda ay dadkooda ay doortaan kuwan dawladda ahu waxaan leeyahay iyagu 3 meel baad farageliseen waa Baydhabo waa Jowhar waa Dhuusmareeb 3 maanta waxa ka taagan waa la arkay amni ahaan ay dib mareen dib dhac amniga ku dhacay dib u dhac waxa ku dhacay dhaqaale dib u dhac dib u heshiisiintii oo dib u furatay ana waxaan kula talinayaa inay dadka faraha kala baxaan dadka waxay rabaan ay doortaan haday meesha wax ka helaan ka qaataan haday waayaan ay kuwi ka horeeyay yeeleen ay ogolaadaan baan kula talinayaa reer koonfur galbeed waxaan leeyahay maanta doorasho la joogaa idinku dadkii runtii waxgaradka ahaa sida Basol Jawaari iyo afar gudoomiye baarlamaan baan ku sheegay haddaan la wada diidanayn badankooda la diidan yahay inay tartamaanba shiriya reer waqooyi dadku soo baxay Professor Abdi Ismail Samatar iyo Abdi Xaashi iyo dadku soo baxay arka hal kursi baan arkay 2 professor iyo hal dhakhtar ay ku tartamayeen wala meesha Taliban ka arkayay dadka reer waqooyi soo baxay arka Jowhar dadka hadda ka soo baxay arka dadka Kismaayo ka soo baxay arka dadka Dhuusmareeb ka soo baxay arka dadkii inta la soo saaray shiriya inta markaad fiirisaan xisaab ay soo bixi doonto inta dhimanayaan la idinku darin dadkii idinka doorta walaalaha farmaajo nabadqanu ku darsaday sadbaa diiday waa la diiday idinkuna waxay dulmiyeen diida adduunka wax badan bay shacabku diidaan shacabku waa awood ilaahay subxaanahu wa tacaala awood buu geliyay hadday gartaan weeye waxaan kula talinayaa anigu saas dad baa u haysta milkiilayaal inay yihiin waxa la isku dilayo annaga naloo dilayo dad baa naloo dilay runtii hadda marka aniga isoo xiray dad baa lagu laayay meesha waa dhogay inta wax loo samaynayo waa in la soo laabto waan hubaa soo laaban maayaan anigu waxaan leeyahay dadku wacdaynaya insha allahu tacaala Soomaalida oo dhanba meel kasta ay joogaan farmaajo soo celinina hal codna siinina reer koonfur galbeed waxaan leeyahay hal cod hayska siinina way taageerayaasha farmaajo iyo madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne lafta gareen waxay ku doodi karaan markay hadda hadalkaaga dhageystaan inaad tahay nin la xiray nin caraysan nin kursi laga hor istaagay oo maxaan ku idhaahdaa caradii ay ka keentay hadalka jawaabtaada waa suuragal aniga la isoo xiray lafta gareen waxaa la qumaa dadkii inuu horumariyo ammaankooda uu horumariyo dhaqaalahooda uu horumariyo marka la isoo xiray anigu Buurhakab iyo Baydhabo 60 kilomitir ah baa isku socday
soo helo ugu dambeysay laba wada raashin lagu keeni jiray quraacdooma iyo elberdeka kala yimaado badna 90 ay tahay midna 100 iyo ziyaado labadiiba hadda waa laga soo xiray waa ka go'an yihiin madaxweynaha qodobkiisa waa la socday oo waajib buu tagay xudur buu tagay wadooyinka idin fawaakan ayay yiriisa waan maqlaayay waajib buu tagay tookada ama dhulka marayo lugta ku socdaan imanaya waa ku laabtay lugtiisa kuma tegin shaqada hadda ugu dambeysay sagaal gaariyo raashin sida ka go'doonsan in la guriga waa la socdaa aad baan uga xumahay waxaan rajaynayaa in laga bixi doono bani aadan baan ahay waan adoon kala laakiin waxa aan ka hadlayaa waxay tahay warkaas la dhihi lahaa intaan Cabdulaziz wada tartan muuduusan tuuq iyo faayin lahaa waxa la dhihi lahaa waa nin areysan maxaa u diidaysan tuuq su'aashaas waa nool yahay saadiq doon baa warsay markuu isoo waday meeshaan keenay aan ku war waa la tartamay lacag badan baa haysatay hay'adin hor istaagaan ku iriyo oo lacagtii ugu guuleysan weysay oo Itoobiya ugu adeegsanaysa waa nool yahay ugu deeniya maanta waxaan hubsanay buu hal codna inuu salmeen kala maraynin laakiin war aan saxayn buu sheegay oo dadku rabitaan ugu dooran maayaan baqdin bay ugu dooranayaan baqdin kan ka baadinayeen baqdin ma jiro rabitaan kooda yahayd yaa shakhsiyan uma haysto laakiin waxaan rabay inuu tartamo oo aan qasab meesha lagu geeynin baa rabay way waxaan uma haysto reer ahaan uma haysto halka uma haysto way waxaan rabay inaan fursad ku siiyo kale markii lagu xiray lagu soo qabtay taageerayaasha dawladda dadka taageersanaa in lagu xiro xarigaagana raali ka ahaa waxay ku doodeen taageerayaasha dawladda iyo kuwa kale waxay ku doodeen Mukhtaar Roobow siduu shabaab uga soo baxay marna ma aynaan maqlin isagoo naqdinaya jihaadka gacanka hadalka ku salaysan marna ma aynaan arkin isagoo cambaareynaya al-shabaab oo dhahaya waan ka haray jihaadkii gacan ka hadalka ku salaysnaa fursad haddii aan ku siiyo hadda maxay tahay aragtida aad ka qabto jihaadka gacan ka hadal ku salaysan iyo ururka al-shabaab labadaba shabaab isagu insha Allah taala anoo xor oo waxay iyagu dhahaan ka jawaabi karaan arrinkooda ka warrami doona laakiin waxyaabaha iyagu ay sheegayeen anigu intaas ma maqle waxaan maqlay ninkii markaa joogay booliiska oo asluubta joogo uu sheegay laba dukumeenti baan ka hayaa uu dawladda dhexe uu soo dhigay uu dhahayo inaan habeenkiiba 100 shabaab aan keenayo inagoo qaanuun la marsiin aan gurigeyga geysanayo oo aan doorashada ku boorisabo in Axmed Madoobe uu isoo farayo diyaarada hub uu soo daldalayo oo aan magaaladii ku dejinayo waxaas oo dhan ordiga ka weyn waxa oo dan lagala haayo bay ka ahayde waxba asaas rasmi ale ma ahayn shabaab meeshaan kusoo kala tagnay anigu igama saarine ana ka tagay kale soo weeraray markaan ka soo tagay 5 sano iyo 7 bil baa u dhaxaysay wiilashayga ku dhintay oo farmaajo wiilka lama dhiman oo Xasan Khayro markaa joogay kagama dhiman marka waxyaabaha qaarkooda runtii waxaa jawaab badan u baahan ma laakiin mawduuca shabaab inuu yahay iyo maxaa la isku hayay iyo taas insha Allah taala hadaan noolaado waan ka hadli doonaa qodobka ku saabsan laakiin waxaan ku darayaa qodobka ku saabsan jihaadka iyo gacanka hadalka in dagaal wax lagu raadiyo taas walaal horta maxaa dhahaysaa iyada kalimaad noo qoray markaa nimid waa dogeyno intaas adoo dhahda mooyaane war kala gaw iyo gash male intiina meesha aan ka sheegnay kadibna runtii iyaga naftooda adiga haddii lagu dhaho war qubka iska dhig lagu dhaho war nabad baan wax ku raadinaya dhaho nabad wax ku raadi haddana markaad nabadii marto haddii lagu dhex fadhiisto haaruun maxaa iman karo weliba adaa soo xasuusiyay hadal muhiim baan soo xasuustay doorashada intaan ku jiray saad maanta waa nool yahay aygu beeniyo waa isoo wacay wuxuu igu yiri codadka oo dhan haddaad hesho lagu aqoonsan maayo markaa macadiya faahfaahin codadka koonfur galbeed baarlamaanka oo dhan hadduu ku doorto 149 bay ahaayeen aan umalaynaya wuxuu yiri dawladda iyadu aqoonsan mayso marka maxaad ugu jawaabtay kaloo igu yiri haddii lagaa raayo oo lagaa soo badiyana dawladda kusoo dhex noqon mayso laba marka waxaa ku furan uu igu yiri saaxiibadaadii hore inaad aado mana ku sahlan uu igu yiri taas macnaheeda nabad wax ku raadi haddii nabad in lagu dhex fadhiisto saas lagu leeyahay
weliba lagu leeyahay adoo qasban saaxiibadaadii hore aad meeshaas uma dawlada taala mise milkiilaha faad lagu sheegaa run aho waxaan isagaa iskale oo waxa mise wax oo Soomaali ay leedahay waa ma isheeg kartaa ninka saas aniga ii galay oo saas igula hadlay hadda wuxuu oleynaya inuu beledweyne ama jawhar intuu tago baarlamaanka xildhibaan ka soo qaato oo baarlamaankii Soomaaliya uu shalay uu beenta cad u sheegay isagoo qol igu haystiri ma arag oo dhex fadhiisto oo ku xigeenka baarlamaanka uu qaato oo boorsadii yareed uga dhex fadhiisto raba ka war waxaan rabaa qodobka ah inaad shabaab aad ka soo baxday dagaalka aad ka soo horjeedo hadda haddii lagu sii daayana qof nabad wax ku raadiya aad tahay inaad arrintaa fursad aan ku siiyo bal u kala cadayso mowqifkaaga dadka Soomaaliyeed mar kale aan fursad ku siiyo horaan u cadeeyay kaas walaalahaal inado aad u mahadsan hadda kaas xabsi ku cadeyn maaye horaan u cadeeyay kaas wararkaygii dib u raaco huri mowqifkaygana weligiisa waa caddaa anigu nabad baan wax ku raadiyey waana ku raadin doonaa haddaan la iqasbin walaalow marka dhaxal aabaha aad kasoo gaartood leedahay uu nin shaksi a ku leeyahay haddii dadkao dhan ku doortaan lagu aqoonsan mayn annagaana wixii haysana haddii lagaa soo badiyo dawladda ma soo baxmaraysid mar dambe waxaa kuu furan uun doolkii inaad ku laabato taas haddii waa xaniitaabado waad garanaysaa laakiin anigu qof nabad wax ku raadinayaan ahay qof ogol baan ahay in la tartamo wixii ilaahay dadka kala siiyo la kala helo dad uma arko saas weya marna intii aad banaanka joogtay iyo intii aad xirnaydba marna ma ismaqasheen madaxweyne Farmaajo telefoon ma kugula hadlay ma ku qaabilay ilaa sidii aad shabaabka uga soo baxday oo duurka markaan ka imimiya markaad duurka ka timid marna miyuu ku soo wacay oo ma kula sheekaystay xaaladaada ma ku weydiiyey hadallo ma isdhaafsateen ama toos ma u kulanteen ama telefoon ma ku wada hadashay ilaa 6 mar baan kulanay waa gartay wax bal ma noo faahfaahin kartaa kulamadaas baanu ka wada hadalnay hadalkiisa aad buu u macaanaa laakiin wax tanfiida yani wax fulin ama una lahayn waa gartay markii hadda ololaha aan galayna mar buu ii soo diray allah u naxariistee nin dhintay ugaas maxamed weli oo lagu yaqaano ugaasku waa ii yimid Farmaajo ay soo diray wuxuu codsanayaa buu yidhi inaad Muqdisho ku laabatood u tagto waa gartay marka dad baba nala joogo maanta nool waxaan ku yidhi dib malahane aan wada hadalna aan ku yidhi anigu ma soo dhuumane bal aan wada hadalno waa wada hadalno telefoon baanu ku wada hadalnay wuxuu ugu yidhi soo laabo waxaan ku yidhi madaxweyne dib malahane warqadaan soo saarteen waxaa ku qoran inaanaan tartami karin warqada ma ogtahay baan idhi hoogaa waa ka warwareegay waa gartay kadib waxaan ku idhi new dastuurka waxaa ku qoran nin kasta oo Soomaaliya waa la dooran karaa waxna waa dooran karaa laguma dooran karo macnaheedu waxa weeyaan muwaadin ma tihid weeyaan maxkamadna ima dhiminay shakhsi baa yidhi waxaan ku idhi warqada ka laabta waan imanaya kadib madaxweynaha wuxuu dhaafi waayey khalad baa dhacay horta imow intaasuu dhaafi waayey su-aasha kale la isweydiin kara Sheekh Mukhtaar waxa weeye waraysigani maadaama sidaan sheegay uu yahay kii ugu horreeyay bixiso ilaa intii aad ka soo baxday al-shabaab bal si kooban maxaad ku kala tagteen adigii al-shabaab shabaab waa kala tagnay oo horta markaan Muqdisho imid iyo markaan kala tagnay sanawaad badan ayaa u dhexeeyay horaan u sheegay kuwadii aan iyagii iskhilaafnay horaan u sheegay inaan aqiida ku kala tagnay dadkuna aqiida isku fahma ama ku kala tagaa iyaguna way ii qirsan yihiin inaan aqiida ku kala tagnay ma inkirayaan horta nimanka aqiida aan ku kala tagnay kadib anigu deegaankaygaan iska tagay oon iska joogay duruus baan ku akrinayay meeshayda anoo iska joogo ilaahay qadarkiisa waxaa dhacday dhacdooyin badan waxyaabihii aan uga soo tegay wax kamid ah waxaa kamid ahaa anoo duurkaas joogo Sheekh Abdulqaadir Jacmay baa la dilay raxmatullahi tacaala calayhi sheekha markii la dilay waan ka hadlay haddaad xusuusataan codka inaad ka helaysaan u malayn waa kaan idhi sheekhu waa shahiidul mixraab downi baa lagu diray nin muslim oo tukanayo la dilay Cumar ibn Khattab igu husheeyey kan dilayna gaalkiibuu ahaa Abdul Almajusi ninka Sheekh Abdulqaadir dilay waxaan ku idhi shaqadii ma
niman shacab qaadir oo tukanayo rukuucsan bay salaada ku dileen ay maanta tirsan yihiin inay shacab qaadir dileen ana shadiidul maxraab baan u arkaa marka meesha lagu kala tagay haaruunow kan nafteeda kamid a waxyaabaha kaloo cajiibka oo inaan kuu sheega ay tahay waxaa kamid a hadda marka laisoo weerari karay anoo meesha iska joogo duruus akrinayo ayay maraykanka iga qaadeen lacagtay saareen markii lacagtii la qaaday rag badan oo maanta aan rajaynayo inay dhegeysan doonaan oo aan qaar badan nolol aan ku waada dhinteen allah unaxariisanta dhimatee ayaa isoo waceen markaan saas leeyahayna walaal haaruun anigu iyagaa igaalaysiinayo anigu gaalaysiin maayo muslimiin khaldan inay yihiin baan uhaystaahe ma gaalaynayo laakiin iyaga way igaalaysiiyaan inay igaalaysiiyaan nafteedana haddana inaan adigada ku kala tagnay waxay igu qoreen bay kamid tahay anigu gaalaysiin maayo ragii baa isoo wacayo waxay igu yidhaahdeen maraykanka lacagta kaa qaaday waxaan rabnaa inaad beeniso aad tiraahdo lacag la igama qaadi karo anaa u baahan way isaarnaanaysaa kir baa la inu yiri waa isaaran tahay anaa raba sidaydaan ku rabaa waa idin layn doonaa waa noo tahay dhaba-ood dhihi maayaan ku eri marka horena isaara ma dhihin iga qaadana ma dhihin dhihina maayaan ku eri markaasay igu dhaheen dhiigaagaa banaa qaar iyagii kamid ay igu dhaheen dhiigaagaa ku banaanaanayo eri waxaan ku iri dhiigayga kelimo maraykan loogu jawaabo baadin ku banaanaado u banaanaayo iyo tagaan ku eri yaa ku dhahaya saasoo kusoo wacay yaa ku dhahaya saasoo kusoo wacay waa rag dhex joogo ani hadda magacyadooda sheegi maayo waa rag badan oo lama aho iyagu weliba naseexayba ka ahayd saasaaba la toosnayd waxay lahaayeen qaarkooda qaar iyada toos ugu fakeraya qaar ka fakar duwan labadaba way jireen waxay lahaayeen qaar ogow saas hadday tahay raalli baad ka tahay kufrinimo lagu raalli noqdo weeyaan kan weeyaan bay tahay waa gartay marka su-aasha halkaa la isweydiin kara waxa weeyaan marka dad fara badan bay gacanta shabaab saas ugu baxay aad sheegtay oo dad badan oo rayida maxaan ku idhaha waxba galabsan qalad lagu dilay sida aad adigu sheegtayba marka ma ka qoomaysaa shabaab inaad ka mid noqotay horta weligayguba anigu mu'aamaraad iyo laablaab mara ka shaqaynin mana la igu yaqaano alidheerana wuxuu igu haystay oo warkuu sheegay waad maqlaysay ka dhex raadi weligay anigu waxaan aaminsanaa dadka inaan la dhibin dawladnimada la raadiyo wixii dawli ah in lala diriro wixii xaqana lala shaqeeyo intaas un baan qaray qofka bani aadanka oo dhanba kulli ibnu aadan khata khayru khata'ina tawaabuun wax kastoo khaldan waxay noqdaanba oon anigu u khaldamay rabbigay baan uga toobad keenaya iyadoo cidda qasbaysa aan la arag wixii wax kastoo wanaagsanayo aan sameeyeyna ka qoomamay maayo way su-aasha kale hadda xilligan ku jirta saaxada siyaasadda iyo soomaalida dhegeystayaashana dhegeysanaysa waxa weeyaan al-shabaab ma yihiin urur lala hadli karo diyaar ma u yihiin wada xaajood jawaabtaada kan hataa meel haddaan kaga noqdo dadka iyo dadka hala daayada waxyaabaha ugu daran oo nimankaas aan ku dirirnay ba ahayd waad og tahay baydhabo markaan galnay dadkii joogay xildhibaano 7 miya 8 miya iyo dad badan baan meesha ugu tagnay runtii markii waa la hadalnay oo meesha hadal bay uga baxeen qofna ma aanan wax yeelayn maalinkaas axmed baa noola waa isoo wacay wuxuu igu yiri qadiyadda baydhabo aad ka samaysay saameyn weyn bay nagu yeelatay waa in dawo loo helaa markaasaan ku iri maxaa u dawo ah wuxuu igu yiri dadkaas waa in birta laga aslaa maanta waxaa fiicnaan lahayd inuu noolaan lahaayo uu ii jawaabi karo laakiin niman qabaayo waa warjiray maalinkaasna qofna laguma dilin meeshaas oo si nabada dadka waxaan ku niri anigu cid kastoo dawlad la shaqaysay kulli waa cafis guud cidna ma haysano waana qaabka aan rabnay in lagu socdo oo nalaga diiday waa qaabka runtii taalibaan intay qaadatay hadda wadankoodii ay ku joogaan oo shacabkoodii heshiis kula yihiin waad aragtay oo qofkii maalinba hataa nin gaala maalin leel ama shir la gala waa gaalowday waa kuwaan lehe waa kuwa hadda taalibaan safiiradii iyo dawladihii iyo dunyadii o dhan ay dhex fadhido ay u gacmahaadinayaan 6 wadan oo xuduuda lale kulli ay leeyihiin calaaqadeena way fiican tahay ninkii keligiisa qof isku soo xiro
oo yiraahdo keligay baa muslim harun horta adoo raalli ah laba qolobo waxyaab leeday sameeyeen nimankaan islaamnimadii bay madaxa ku saarteen oo dhaheen qofkaan rabana waa gelinaynaa kaan rabana waa ka bixinayna qofkii ra'yi nagu khilaafo muslimba ma ahan dawladnimadiina gruubkaa hadda haystaa afduubeen waxay leeyihiin carar xildhibaan ma noqonaysid wasiir ma noqonaysid ma soo gelaysid iyaguna dawladnimadii madaxa ku sitaan labada waa inay soo dhigaan diintana waa si dadka oo dhan isla leh dawladnimadana umada oo dhan ay ka dhexaysa taas markaan harun oo iga raayaan ka tago tan oo su-aasha igu eligtii dambe ha ma lala hadli karaa diyaar mooyin wada hadal ha waa lala hadli karaa oo isku jiraan dad ogolaanayo in lala hadlo waa laga helayaa laakiin dawladii la hadli lahayd dawladdan ma ahan haddii dawlad waaci ah oo qadiyada fahmaysa oo wax miisaamaysa oo wadanka inay dejiso run ka tahay haddii la helo waa la wada hadli karaa laakiin mid lagu wada hadli ma kare dad badan hadda waxaa miisaal loogu soo qaataa aniga waxay leeyihin ninkaasa isu diiday oo meeshii tagay kan haysato waad aragteen hadda waad aragtay labadan beri waxay jawaabahay qorqorayeen waad arkaysa ar qofkii utaga taasaa ku dhacaysaa laleeyahay marka haddii la helo dawlad waaciya oo runtii wax fahmaysa la tashanaysa culumadeeda iyo waxgaradkeeda in yar mooyaane inta badan qaar badan ani waa buqbaayo dawladda anaaba meesha ku haysa madorayba ka iman lahaye waaya su-aasha ugu dambaysan raba inaan ku weydiye waxa weeyaan hamigaaga siyaasadeed miyuu isbedelay hadda oo haddii aad soo baxdo ma tartamaysaa mar kale siyaasadda hamigaaga miyuu isbedelay maya walaal isma bedelin wax badanna waan akriyey runtii hadday bacda tahay qur-aan tahay wax kale tahay ilaahay baan ugu mahadinahayaa hamiga iyagu isma bedelin in insha allahu tacaala dadka iyaga iyo dalka iyaga aan horumariyaan markasta diyaar u ahaan doonaa insha allahu ma niyad jabi maayan haddaanan dhiman insha allahu waan sii wadi doonaa masiiradaas ma joojinay